السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دواد اوغادان تي في oo idinku soo gudbin doona shirki ka socday magaalada San Diego ee gobolka California ariga Mareykanka waxaan idin soo gudbin doonaa wareysiyo aanu la yeelanay xubnihii ka qayb galay shirkii ururka dhalinyarada ee shirkii labaad ee ka dhacay magaalada San Diego kaasoo ku soo dhamaaday si guul ah iyadoo aan ka wareysan doono xubnihii ka mid ahaa musharaxiinta oo halkan ila fadhiya midigtayda waxaa fadhiya Cabdicasiis Shaqlane oo ka yimid Denver waxaa bidixdayda fadhiya muwaadinkii musharaxa ahaa mudane Cabdicasiis Aadan oo inooga yimid London waxaa dhinaca bidix ka sii fadhiya Khadar Maxamed Colaad oo ku magac dheer Roblo wada garanaysaan oo ka socda gobolka Minneapolis Minnesota waxaan jeclahay inaan ku bilaabo ugu horeyn Cabdicasiis Shaqlane from Denver sida uu arko intii uu socday shirka iyo natiijadii ka soo baxday shirkii iyo doorashadii maanta ku soo gabagabowday ariga Mareykanka magaalada San Diego gobolka California Cabdicasiis shirkii labaad ee ururka dhalinyarada oo muddadii dheereed aan ku soo jirnay iyadoo aan dareemi karo inuu jiro daal badan sideed u aragtaa say u dhacday doorashada bal wax ma nooga taaban kartaa aad baa mahadsantiin walaalayaal dadweynahana daawanayana sidoo kale waanu idinku mahad celinaynaa walaalayaal haddii aan ka bilaabo socdaalkanagii ahaa inaanu ka qayb gallo shirkan kalfadhigii labaad ee OSU ee ka dhacay San Diego oo maanta gabagabadiisa aynu halkan ku wareysanayno run ahaantii shirkani muddo dheer buu soo socday abaabulkiisa iyo dhaqangalkiisa iyo maaragtay isku xidhkiisa aad baa loogu guulaystay shirka haddaan u daadego muddo 4 beri ah baanu fooda isku haynay aanu dejinaynay nidaamyo badan sida muuqatana waad u jeedaa hadda gabagabadiisii baad naga wareysanaysaa waanu ku guulaysanay in structure-kii iyo saldhigii tiimka macnaha ururka aanu si fiican dhididada ugu aasnay insha Allah tacaala detailskana waa la wada heli doonaa ururadu meel walba ay joogaan laakiin waxaan ku tilmaami karaa guul aad iyo aad looga soo baarandegay inuu meesha ay maanta aanu ku soo gabagabaynayno ururka waa mahadsantahay aad baa u mahadsantahay mudane Cabdicasiis waxaan dhinka bidix iga fadhiyay Cabdicasiis oo mar labaad idin sheegayo kuna noqon doono su'aalaha aan weydiin doono ku soo dhaw mudane Cabdicasiis marka hore Mareykanka North America marka xiga ku soo dhaw San Diego marka saddexaad ku soo dhaw shirka ururka dhalinyarada annagoo aad ugu niyad fiyow aadna ugu faraxsan imaanshahaaga waxaan jeclahay inaan ka wareysano sida aad u aragto muddadii ay doorashooyinka iyo hawlahan ay socdeen aad baad u mahadsantahay mudane xafid runtii waxaan marka hore u mahad celinayaa jaaliyadda iyo ururka dhalinyarada ee San Diego oo runtii si kalsooni ah oo aad iyo aad u wanaagsan ugu soo dhaweeyay inaanu maanta aanu shirkan uga soo qayb galno ayagoo gacanta nagu hayay muddadii aanu joognay oo si fiican noo soo dhaweeyay marka aad baad u mahadsantihiin waad mahadsantihiin aad baa u mahadsantahay Cabdicasiis inagoo weli ku sii guda jirna su'aalihii aan ku weydiinaynay waa aad baad u mahadsantahay jawaabahaaga sideed u aragtaa natiijooyinka ka soo baxay doorashadii shirkan iyo iyaga oon runtii la dhihi karo wax lagu faani karana ay tahay heerka ay maanta gaadhay ururka weynaha OSU oo caalamka dhan laga codeeyay haddana goobjoog aad u ahayd goobtii cod bixinta ugu dambeysay ay ka dhacaysay sidee ku aragtaa adu aad baad u mahadsantahay runtii system wanaagsan oo aad iyo aad heer sare u ayay ku dhacday doorashaduna waxay ahayd mid xaqa oo maaragtay sidii la rabay u dhacday taasoo ay gacanta ku hayeen dhalinyaradii ururka dhalinyarada ee OSU ka mid ahaa ee weliba maaragtay u bislaa arrimahan kadato runtiina xilli badanna way geliyeen aqoon badan iyo way aragnimo fara badan oo ay haysteenna way kaga faa'iideysteen marka waxaan odhan karaa doorashadu si xaq ah u dhacday sidii la rabay bay u dhacday si aan ku qanacsanahay oo maaragtay sidii waajibka ahayd ayaa u dhacday mahadsanid aad baad u mahadsantahay mudane Cabdicasiis oo runtii ka dhawaajiyay hadaladii maalinkii uu codka boor meeshuu ku soo xidhmay uu kaga dhawaajiyay markii lagu dhawaaqay codaynta ugu dambeysay
waana guusha lagu faani karo ay gaareen ururweynaha dhalinyarada OICU. waxaan ugu dambaysiinayaa su-aashaydii ugu dambaysay cabdicasiis adigoo ay kuu qarshaysnayd inaad horay u sii qodo dardarna aad geliso shaqadii ururka dhalinyarada maanta maadaama mas-uulkii horay u hayay uu ku soo noqday maxaa adiga kuu qorshaysan ood leedahay waad qaban kartaa mase la shaqayn doontaa mas-uulka hadda kaa guulaystay ama soo baxay xilkii mar labaad ku soo noqday mudane Mujahid Sheekh Ibraahim? mudane xafid aad baad u mahadsan tahay. runtii horta waxaa jirta wax la yidhaahdo qofku waa inuu yeelaa wax alla wixii go'aana ee ka soo baxa muxuu ahaay doorashadii sababtoo tahay waxaanu muxuu ahaay authority u siinay dad mas-uuliyiina inay go'aankooda ay qaataan oo ay maaragtay soo habeeyaan wax walba oo aanan shaki iyo waxba aanan ka qabin maadaama aanu nahay hal urur maadaama aanu nahay hal ujeedo dad leh. mudane Mujaahid marka hore waanu hambalyaynayaa waxaan leeyahay hambalyo ilaahay xilkan ha kugu asturo. waxaana ballan qaadayaa sidii markii horeba caadada ahayd in aan la shaqayn doono shaqadana aan rajaynayno inay maaragtay maalinba maalinta kasii dambaysa ay kor u sii kici doonto. waxaa kaloon ayadana rajaynayaa dee kolley tartankuna igama xidhna oo kolley insha Allah waxaan rajaynayaa next year markii ay teeramka kale u imanaya nafteeda inaan dib isu sharaxo marka weli baabku waa noo furan yahay marka mahadsanid. aad baa u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa mudane cabdicasiis aadan oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo sharaxay xilkii doorashadii hogaaminta ururka dhalinyarada ardayda Ogaadenya OICU oo runtii si diiran oo qanacsan oo farxad leh oo kalsooni leh noogu soo bandhigay dareenkiisa markii hore iyo markii dambaba. aad baan ugu mahad celinaynaa. aad baad u mahadsan tahay mudane cabdicasiis. waxaan hadda u gudbayaa ninka ku xiga oo ah Khadar Maxamed Colaad oon wareysan doono isna sidii uu arkayay muddadii waqtiga uu soo geliyay iyo natiijadii laga lahaa ururka inuu gaaray doorashooyinkii soo socday. mudane Roble ku soo dhow. aad baad u mahadsan tahay xaafid iyo bahda Ogaadeen TV channel-kan aad noo siisay inaad maanta maarta shucuubtanada aan idinku soo bandhigno waxaan ka dareemayno shirka. aad baad u mahadsan tahay mudane Roble. waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo wax ma nooga sheegi kartaa dareenkaaga intii uu shirkan socday qaab socodka shirka iyo hanaanka loo maamulay sidaad u aragtaa maxaase ku qeexi lahayd? runtii xaafidow shirkan oo muddo 4 beri ah socday maantana inoo soo gabagaboobay ilaahay baa ku mahadlay dhammaanteen si nabada isugu keenay waxaana ilaahay kasoo u mahad celinayaa ururka dhalinyarta OICU San Diego iyo jaaliyadda San Diego oo runtii organize ka dhigtay hawshan inta ay socotay si maaragtay dawladnimo ku jirtana u maamuleysay qorshaha shirka. runtii waxyaalo aad iyo aad u fara badan baa shirkan maaragtay ka faa'iidnay. waxaa lagu bixiyay seminaaro aad iyo aad u fara badan oo lagu wacyigelinayo korna loogu qaadayo aqoonta dhalinyarada ka soo qayb gashay shirka. waxaa ka dhacday doorashadii maaragtay xogayaha guud ee OICU oo runtii aan ugu hambalyeynayo mudane Mujahid Sheekh Ibraahim sidoo kalena aan ugu mahad celinayo mudane Cabdicasiis walaalkeen oo qaali ah oo isaguna ka mid ah dadka u sharaxnaa. marka runtii waxaan dhihi karaa waxaa ka soo baxay midho dhal aad iyo aad maaragtay u fiican oo lagu shaqayn karo maaragtay 3 sano soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. aad baad u mahadsan tahay mudane Khadar. waxaan jeclaan lahaa haddana inaan ku weydiiyo anigoo sii wata su'aalahaygii natiijooyinka doorashada ka soo baxay waxaa jirtay 2 mas-uul oo ku tartamaysay xilka waxaana ku soo baxay mas-uulkii hore awalba aan la shaqaynaynay maxaad kula dardaarmi lahayd maxaanse dhihi lahayd mas-uulka 3 sano ee soo socota? aad iyo aad baad u mahadsantahay xaafid. runtii waxaan kula dardaarmi lahaa in uu horay u sii wado howlaha halganka iyo dhalinyartaba kagana dhabeeyo waxyaalihii uu ballan qaaday hadduu Ilaahay yiraahdo isaga oo 3 sano u dambeysana soo maamulaya ururka oo aaminsanahay in waxyaalo badan oo experience ah uu ka soo bartay waqtigii la soo dhaafay. waxaan kula dardaarmi lahaa inuu midnimada dhalinyarta iyo maaragtay hor socodka halganka iyo geed u socodka maaragtay qadiyada Ogaadenya inuu laab intuu ka shaqeynay in ka badan ka sii shaqeeyo. insha Allah maaragtay dhammaan ururka dhalinyarta OICU ee caalamka joogana waxaan maaragtay kula dardaarmayaa
inay iyaguna maaragtay isku xidhnaansho badan ay muujiyaan una hoggaansamaan maaragtay awaamiirta iyo maaragtay maamulka cusub ee OYCU hadduu ilaahay yidhaahdo middaas oo ah midnimadu waxa keliya aan ku gaari karno hadafka aan higsanayno ee ah xorriyadda ogaadeenaya hadduu ilaahay yidhaahdo marka sida aad sheegtay xaafid waxaan kula dardaarmi lahaa inuu dardar geliyo howlaha halganka labanlaabo ee isku xidho dhammaan ururka dhallinyarta ee caalamka ee OYCU. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada Ogaden TV oo mar kale idin soo gudbinaya waraysiyo aanu ka qaadnay dhalinyaradii ka soo qayb gashay shirkii labaad ee ururka dhalinyarada iyo midowga ardayda oo ka dhacay San Diego gobolka California cariga Mareykanka. waxaanu halkan ku waraysan doonaa xubno ka mid ah mas'uuliyiintii shirka noo qabatay ee daadihinaysay waqtiga badan soo geliyay runtii si fiican u hirgeliyay waa Huda Axmed iyo Najla Ibrahim oo hadda nala fadhiya waanu weydiin doono wixii intii uu shirka socday aragtidooda iyo sida ay u soo qaban qaabiyeen. aan ku horeeyo Huda seed u aragtaa ama soo u socday intuu shirka socday maxaad kala kulanteen dhalinyaradii fara badan baad marti qaateen oo gobolada Mareykanka ka kala timid iyo daafaha adduunka sidii idinku qabsamay shirkana hadda isleedahay. السلام عليكم. شركة ما شاء الله سفي عن ودعي. They were all very productive. It was a long, hard 3 days. I had 12 hours of shirka every single day, and although we were tired, we stayed until the job was done, and I feel like it was an extremely productive conference, and we were able to discuss a lot of various issues affecting OYSU and inshallah how we can better ourselves in the future. taas waxay ahayd Huda oo runtii nooga warantay sidii uu shirka u dhacay sida dhalinyaradu uga soo qayb galeen iyo rajada ay ka qabeen. aan ku xijiyo Najla Ibrahim oo iyadana dhinaca bidix ka fadhida Huda. Najla sidaad u aragtaa adigu muddadii uu shirka socday in natiijadii ka soo baxday doorashada? Assalamu alaikum, and I agree with what Huda has said so far. I think it was very productive. Also, I would like to include that the members that ka soo qayb galan shirka aad si fiican ugu dadaaleen all the different things we had to do. They were very passionate and hardworking, and I think that was very important for the success of the conference. aad bay u mahadsantahay. su-aasha ugu dambeysay oon weydiinayo labadoodaba oo ah maxaad kula dardaarmi lahaydeen mas-uulka hadda xilka inoo haya 3 sano hore la soo dhaafay inoo soo hayay maxaad kula dardaarmi lahaydeen? horta waxaan rabaa inaan congratulate garayo Mudane Mujahid oo haddana la doortay. That mashallah, I think he did an amazing job for the first 3 years of building up OYSU, making all these branches around the world. But had the OYSU is at the moment that we need to take the next step. We need to do a lot more in order for us to reach the goal that we need for Datkana. So I have a lot of expectations for Mudane Mujahid. A lot of really good projects and all the really good ideas came out of this conference. And I'm expecting him to really implement all the programs that we've decided to take on as OYSU, and inshallah to take us to a higher level than we are right now. aad baa u mahadsantahay. waxaan isla su-aashii ku sii celinaynaa Najla oo iyadana wixii ay ku darayso iyo dardaarana noo sii wadi doonta. I think the conference was very successful in laying the groundwork or the foundation for the next 3 years. And the only thing, as Huda has mentioned, is we have to make sure that all the things that we said we're going to accomplish, we have to implement it. And we have to make sure that we just don't do what we've said, but do far greater stuff and make sure that we make the differences that we have been trying to make. aad baad u mahadsantihiin Huda iyo Najla. waxii shirka daadihaynayay marka waxaan jeclaan lahaa ayaan leh inaan weydiiyo bal meesha uu ka yimid inta ay jirto iyo waxa uu ka dhaxlay joogitaankiisa shirka. bismillah aad baad u mahadsantahay wariye. waxaan u mahad celinayaa dhammaan baada Ogaden TV iyo waxqabadkii buuxay inta shirka joognay maartay noo qabteen ama media say maartay update u sameynayeen. haddaan su-aashii ku laabto waxa weeyaan horta 1800 oo kilomitir yaan soo soconaa ama 1400 oo mayl baan ka soo soconay fogaaninta dhan
muhiimadda aan u soo soconayna aanu soo drive garan annagoo dhalinyaro reer Dallas ah waxa weeyaan muhiimadda inaanu shirka ka maartay ka qayb qaadano qaybtii ugu muhiimsanaydna waan ka qaadanay shirkana waxaan kala kulannay wax aad u farxad badan go'aamadii iyo maartay hawlihii shirka lagu soo bandhigayna si fiican baan ula soconnay aadna waan ula dhacnay aad buu mahadsan yahay Ayaale waxaan ku noqonayaa Saalax Maxamed Saalax oo ah xogayaha Dallas Saalax maadaama aad shirkan timid oo ka soo qayb gashay maxaad ku soo biirisay maxaase la tagaysaa oo isleedahay waad u kordhin doontaa xubnihii aad ka timid maadaama xogiyihii Dallas tahay aad baad u mahadsantahay wariye shirkan waxaan kala kulannay markii ugu horeysa horta waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo OYSU San Diego iyo jaaliyada ku taala shirkan aad iyo aad wax badan baan ka faa'iideysanay wada xiriirkeennii ururka midowga dhalinyarta iyo ardayda Ogaadeniya caalamka oo dhan baan si fiican xiriirkeennii u adkaysanay waxaan samaynayno oo dhan sanadkan soo socda ajendadeena ayaan fulinay oon si fiican u diyaarsanay insha Allah markaan laabano action plan-keena iyo arrimahan qabsanayna ayaan fulin doonaa xoog saari doonaa waa mahadsantahay Saalax Maxamed Saalax Ayaale ma la dhihi karaa 3 sano ee la soo dhaafay marka aad fiiriso hanaanka iyo habka uu dhacay doorashada ururka OYSU adduunka oo dhan waxay sameeyeen maamulkii hore horumar la taaban karo waxayna abuureen jiil ka gudba shakhsi jeclaysi qabiilka iyo waxyaabaha la midka ah oo ku saleeya fikradooda iyo aragtidooda mowqifka toosan ee halganka Ogaadeniya bismillah aad iyo aad waxa weeyaan OYSU 3 sano soo jirtay waxay horseeday dimuqraadiyad doorasho oo maanta halka ka dhacday oo maaragtay aad arkaysa qaabka u dhacday sanduuqdii sidii loo soo maaragtay loo soo agaasimay loo habeeyay ilaahay khayr siiya guddigii doorashada iyo caalamka ka dhacday marka waxaan anu u arkayba waddanka Mareykanka doorasho ka dhacday sida ay uga dhacdo kale inay doorashada u dhacday waxaan rajaynayaa inay 3 sano la soo dhaafay wax ay qabteen oo si lama laabeen iyo wixii ayna qaban oo dhameystiraan iyo wixii qorshaysan oo dhameystiraan iyo wax ayna qaban oo guda galaan iyo wixii ay qabteen oo si joogto ah practical u sameeyaan inay maartay ku guuleysan doonaan annaguna waanu hambaylanaynaynaa waanu garab taaganaynaa insha Allah waanu la shaqeynaynaa si aanu la shaqeyn jiray duulaan ugu dambeyn Saalax Maxamed Saalax maxaad kula dardaarmi lahayd mas'uulkan hadda 3 sano hore inoo soo waday xilka haddana aan sugayno 3 sano dambe soo socota inuu sii wado maxaad kula dardaarmi lahayd hoggaankan xilka noo soo hay 3 sano hore 3 sano cusubna noo hayn doonay waxaan doonayaa kala dardaarmo inay shaqada say wadeen u sii wadaan ee laabaan ay arrimaha laga rabay inay fuliyaan oo dhan inay fuliyaan insha Allah annaguna waa inaan u sheegnaa waan la joognaa waan la shaqaynaynaa insha Allah Ayaale maxaad adna kula dardaarmi lahayd xubnihii labada dhinacba u codeeyay isku dayay labadaba maadaama laba mas'uul ay ahaayeen oo ka tirsan ururka OYSU u kala codeeyay maxaad labada dhinacba aad kula dardaarmi lahayd iyo bulshada maanta aan madashan joogin ee ka maqan ee OYSU ka midka ah horta alxamdulillah dardaaran way qabaan oo say u codeeyeen baa dardaaran oo ahayd dimuqraadiyaddii wanaagii habsami socodkii maaragtay doorashadu socotay iyo shirkuba waxaan rajaynayaa horta intaan 3 sano gaarin baan Ogaadeniya xoroodo oo maaragtay Ilaahay awood leh uga maaragtay ka baryeynaa dhalinyaradu dardaarankay qabaan waa hal la joogtay practical lagu sameeyo wax qabadka joogtada ah haddii aynu sameeyno qof dardaaran gaar qaba ma jiro laakiin haddii aynu sameeyno ficilka aynu fulinayno inaynu khayr ku darro maaragtay Ilaahayna tala saarno waxa hubaala inaan dardaaran qabno wixii iyo hawshii aynu wadnay inay noo fuli doonto waxaan u mahad celinayaa Ogaden TV mar labaad iyo dhalinyaradan sida joogtada ah xilkasnimada ah meel walba u taagan inay qadiyada Soomaaliya reer Ogaadeniya soo shacab bixiyaan saxaafadda ay maaragtay si toos u dhigaan aad baan ugu salaam aad bay u mahadsantihiin labada mas'uul Ayaale Axmed Aar Saalax Maxamed Saalax waa Ogaden TV anigoo ah Xaafid Maxamed Cumar dhinaca farsamada Maxamed Geelo wali waxaanu ku guda jirnaa waraysiyadii aanu ka qaadaynay xubnaha ururka dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeniya waxaa dhinacyahayga fadhiya oon doonayaa inaan su'aalo kooban weydiiyo laba mas'uul oo muddadii uu shirka socday iyo intii aanan madasha imaninba ku soo guda jiray guddigii loo doortay doorashada inay hagaan dhinaca bidix waxaa iga fadhiya Cabdinaasir Cabdinuur oo ka yimid Denmark
dhanka midigna waxaa iga fadhiya Farxaan Axmed oo ka yimid from Minnesota. waxaan ku horeynayaa Cabdinaasir adoo ka yimid Denmark. safar dheer baad u soo gashay qaaradda Yurub baadna ka timid, waxaana ka mid ahay guddigii doorashada. sidees dhihi kartaa anoo og inay kolley caqabado badan aad la kulanteen, sidee idinku dhacday idinkuna sahlanaatay inaad fulisaan? maxaase isleedahay ururka OYC uu ku guulaystay hanaanka iyo habka ay u codeeyeen? bismillahi raxmaan raxiim. waa ku mahadsantahay marka hore. marka labaadna waxaan wada salaamayaa shacabka soomaalida ogaadeen iyo meel walba ku nool yihiin. horta waxaa weeye sidaad sheegtay safar dheer waan soo galay aniga hadda qaaradda Yurub matalayo. marka meelo badan oo adduunkan waa iskaga wada imaanay si aan u wada shaqeyno. doorashada runtii horta hore qabado oo saas aad lama sii kulmin, balse waxaa weeye habkii doorashada u dhacday ayaa waxaan isku dayn in habka caalamka adduunka aan la socono oo habka oo dimuqraadiyad ah. waxaa weeye taana waxay ka timid wada shaqeyn iyo wada tashi anagoo guddi doorasho ah oo adduunka qaarad walba ka wada soconay oo saacadahana sida u kala fog yihiin aad ogtahay ayaa haddii habeen diyaar u ahayn inaan wada hadalno oon isla tashano. go-aamadan isla gaari jirnana waxay ahayn kuwa aan kala tashan jirnay xubnaha soomaalida ogaadeynaya oo ururka OYC ka mid ah meel walbay joogaan. marka si xubnihiina u qancino annagina u qancino oo wax walbana cadaalad ugu dhacaan dadaal aad u badan ayaan muujinay. marka guusha maanta aan gaarnayna dee waxaan moodaaba inaa ururkii dhalinyarada soomaalida ogaadeynayo isaga laftigiisiiba sida dowladihii u dhaqmayo. taana waxaa weeye waxaa keentay aqoonta iyo dhalinyarada firfircoonideeda meel walbay joogaan. marka taana guul aad u weyn weeye oo cadowgana ka naxin karto. aad baa u mahadsan tahay. kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Cabdinuur oo inooga warramaya habsami socodkii iyo nidaamkii ay usoo diyaariyeen doorashada. waxaan ku noqonayaa Farxaan oo isna ka mid ahaa guddigii doorashada madashana nala joogay, uguna dambeeyey codkii la qaaday ugu dambeeyey ahaa xubnihii qaaday oo runtii aad ka arki doontaan shaashadda idiin soo gudbin doono. Farxaan, su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay, ma la dhihi karaa doorashadan aad qabateen aad idinka naliyo doorteen soo hogayseen ururweynaha OYC wuxuu idiin sahlay inayna muujiyeen nidaam dimuqraadiyada kalsooni iyo dhiiranaanna weydiisii? bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay marka ugu horeysa. marka labaad xubnaha shir ka soo qayb galay iyo dhammaan ururka intii ka qayb gashay way mahadsan yihiin. arrimaha doorashadu markii hore aad baa looga cabsi qabay because qaabkaanu anagu u wajahnay oo ahaa in meel walba laga codeeyo wax hadda ka hor dhacday mayn ahayn. marka waxaa la lahaa waxaa laga yaabaa inay fawda ka timaado, waxaa laga yaabaa in laysku aflagaadoodo, in laysku fahmi waayo, in meelaha qaarkood sidii loogu talagalay ka dhici weydo. laakiin horta anaga guusha ugu badanaan gaarnay waxa weeye su-aasha noocaasaan meesha ka saaray. hadda ka hor dhalinyarta waxaa dhibaato ka haysatay meeshii shir lagu qabto ama meeshii in uun maaragtay isku dhowe ay tegi karto maaragtay dhalinyartii kale ayna ka qayb geli karin because wadamada la tegayo iyo tigidhada la goosanayo iyo xagga sharciga dhoofitaanka iyo waxaasoo dhan bay dhibaato dhalinyarta ka haysatay. marka inta shirka tagta unbaa marka hore codayn jirtay. inta kaleo dhan waxaa weeyaan wixii meesha ka soo baxa iyo maaragtay go-aamada iyo waxyaabahaasoo dhan waxmayna ku yeelan jirin. markaan ballaadhinay aad baa meelaha qaarkood waa lala yaaba, waxaa laga yaaba inay fawdo keento, laakiin su-aashaas ayay meesha ka saartay nidaamka aan u ballaadhinay. annagana waxaa noo fududeeyey maaha dadaal dheeraadoon annagu sii gallay, annagoon ku dadaalnay, laakiin waxaa hawsha qabtay oo fududeeyey waxaa weeyaan ururka dhalinyarta ee OYC oo u bislaaday ama maaragtay diyaar u ahaa inuu habkaa u fuliyo. waxaa sii dheerayd doorashadu markay dhacdo xataa cid kale iska daaya dadka codeynaya ee maaragtay codeeyey ayaan ogeyn cidda ku guulaystay codkooda oo ay noqotayna ilaa wiig maalinkii aan hadda halkan kasii daynayna ay ogaadaan. dadka guddida ahee ka shaqaynayay unbaa codka ka ururinayay, codka markay ka ururiyaanna iska tagaa la dhahayay. marka doorashadaas saas ah ee broseska dheer soo martay mayna ahayn mid yacni dadaalka annaga aan muujinay oo guddi qabanqaaba ahaan karti iyo rakarooni aan leenahay annagu aan ku keenay. annagu dadaalka qayb baan ka ahayn, laakiin qaybta ugu weyn waxaa ka qaatay ururada dhalinyarta ee maaragtay heer lookal ah ee wadamada iyo unugyooyinka kala jooga gala gaargaarka ah. meel walbaba 4 ruux baa ka sameynaysay, dadkaasaa codka tirinayay. xataa dadka ay la joogaan ee dhalinyarta ah ee codka laga qaaday codka maynan ogaanaynin. marka annagaa naloo soo dirayay marka codka ka qaadaan dadkaas markay xubnaha cod ka qaadaan way iska dirayeen, way kala dareerayeen.
annagaana loo soo dirayay markaas annaguna sidaasaan u ilaalinay ilaa last maalinkii u dambeysa halka aragteen waxaa aada loogu farxa ahayd in dhallinyaradii maalinkii shirka tusaale ahaan oo kale ay u galeen badankooda waa doorashadii ugu horreysay ee ogaadenya wax la xidhiidha ah ee ay saf u galaan qaar badanna waxay ii sheegeen doorashada kadib inay xornimo dareemeen markay doorasho saf u galeen ay codeeyeen ee maarata nin walba codkiisa halkaa ku riday in arrintaas guul bay ahayd dadkii ka walaacsanaa in caalamka laga codayn karo oo meel kastoo jooga codka maarata laga soo dhiiban karana conference baan u sameynay oo yacni walaacaasa meesha ka baxay dhallinyaradiina waxay noqotay idiilo weyn bay gelisay oo qof walba maanta oo isu ka mid ahi doorashadii ayuu si toosa uga qayb qaatay oo yacni meeshiisii gurigiisa ay uga timid hadduu tegay shirka iyo hadduuna teginba arrimahaasu saasay ahaayeen guul bay noogu dhammaadeen insha allah mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa sidaa iyo si kasii wanaagsan inaan u qabsanno arrimaha iyaga oo abaabulkaas iyo nidaamka iyo wada shaqayntaas iyo tu kasii wan horumar inaan sii samayno mar walbaba marka aad iyo aad baad mahadsantihin salaamu calaykum aad baa u mahadsantahay farxaan axmed waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aashaydii ugu dambeysay oo su-aalahaygii inta badan aan kusoo gabagabeeyo taasoo ah labada mas-uulba aan weydiin doono cabdinaasir iyo farxaanba maxaad kula dardaarmi lahaydeen mas-uulkii 3 sano ee nasoo soo dhaafnay nasoo hayay 3 sanana soo socotayna hayn doona iyo mas-uulkii isku soo sharaxay xilka maxaad kula dardaarmi lahaydeen bismillahi raxmaan raxiim horta mas-uulkii horta meesha soo hayay 3 sane hadda lasoo dhaafay waxaan kula talinayaa oo kula dardaarmayaa inuu horta howsha meeshiisii kasii wado mas-uul hore usoo shaqayn jiray oo 3 sano waay arag usoo lahaa xilkan waxaweye xubnihiina aad bay ugu qanacsanaayeen marka waxaan jeclaan lahaa inuu meeshiisii kasii wado dadaalkii uu sidiis u muujiyo weligiis shaqadu ku ficnaa waxay ahayd inuu cadowga qorshihiisa fashiliyo inuu meeshii kasii wado inuu xiriir la yeesho shacabka soomaalida ogaadayna meel walbay joogaan mas-uulkii kale isa soo sharaxay raftigiisa wuxuu waday qorshe aada u fiican waxaana kula talinaya inuu meesha halganka meeshiisii kasii wado uu labadoodana wada shaqayn oo joogtaa sii bilaabaan maanta waxay ka dambeeya ku mahadsantahay aad baa u mahadsan tahay cabdinaasir farxaan maxaad su-aashan kusoo gabagabayn lahayd iyo dardaarankii waxaan kusoo gabagabayn lahaa mudane mujaahid oo ah mas-uulka mar labaad la doortay hawsha uu ka warhayey kolley howlay soo wadeen waqti dadaal badanna way soo sameeyeen hawsha meesha u marisay qabyad ah way ogyihiin ururku meeshuu ka jilicsan yahay way ogyihiin ururku meeshuu ka xoogan yahay way ogyihiin ururka ajandaha u yaalla ee qabsoomay way ogyihiin ururka ajandaha u yaalla ee aan qabsoomin way ogyihiin ururka ajandaha la raba in lagu soo kordhay way ogyihiin waxaan rabnaa inay arrintaa marka this time ayna ka leexanin waa jaaniskii mas-uulnimo ee horta ugu dambeysay ee maarata ururka dhalinyarta sidaad ka arkaysaan xeerka marka waxaa la yaala wixii aan u qabsoomin hadda jaanis baan ayaan haysanaa annaguna waan la shaqaynaynaa qof keligii wax ma qabto laakiin hogaaminta ayuu qofku qabtaa iyo qorshaha xubnaha kalena way fuliyaan oo way adeecaan annagu waan adeecaynaa laga bilaabo saacadda horena waan u adeecsanayn marka inay hawshaas ay maaragtay inta tabartooda aada ugu dadaalaan habeen iyo maalin ayaan ka codsanaynaa mas-uulkaas mas-uulka kale cabdicasiis iyo maarata isna musharaxa ahaa shalay warkiisa inoo caddeeyey horena wuu ula shaqayn jiray iminkana wuu ula shaqaynaya weliba shaqayn badan buu shaqaynayaa waxa weeyaan cabdicasiis hadda waa la bartay iyo mas-uulkaas waxa weeye markii hore dadku inta badan waxa laga yaabaa la xisaabtamayna odhanin xaguu joogaa iyo hawsha xaguu kaga jiraa laakiin xilligan xadarka xisaab adag baa isaga lisoo u bilaabanaysa halganka meeshuu kaga jiro wuxuu qabanayo markaa qayb buu ka noqon doonaa insha allah qaybta ugu weyn hadduu ka noqon waayana yacni xisaabtanka iyo accountability-ga dhabta ee jabhadda ayaa lagu qaban doonaa haddii ilaah yidhaahdo laakiin markaan sheekaysanay waxaan hubnaa inay isla shaqayn doonaan in dhammaan isla wada shaqayn doona OSU qorshaynu dejinnay runtii action plan ah oo halkan aynu ku dejinnay sabuuradda aan ku discuss garaynaynay qorshaha cidda fulinaysa ma aha mujaahid iyo xubnaha guddiga fulinta la doortay qorshuhu waxay ka fulaan qaybta localkay ka fulaan waxa kale waxa weeyaan waa wareegto